waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah tacticska ugu adag ee marin habaabinta. soo waraaqda waxaad ka hadlaysaan maaha war anigaba way soo gaadhay wax macnolay ku fadhidaa ma jirto. asalaamu calaykum, waa barnaamijkeennii Ciro iyo Jidka Ictiraafka qaybtiisa labaad. qaybtana waxaynu ku eegaynaa humaaga iyo fariimaha marin habaabineed ee dhacay intii uu socday ictiraafka. wuxuuna leeyahay sidaan soo socota: wuxuu diray waraaqo caalamka oo dhan uu ku jiro xataa xasanka xamar ku goodoonsan. ujeedadu maxay ahayd? gadaal baynu ka sheegi doonaa. fariimaha munaasabadaha rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahaynba uu ka dirayaa inta badan kama madhna walaaltinimada Soomaaliyeed. aan hoos ugu daadegno si aad u fahanto maxay tahay psychologiyada humaaga iyo marin habaabinta siyaasadeed uu qaatay hogaanka Ciro intii ictiraafku u socday. marka laga hadlayo political psychology waxaa jira laba jid. labada jid waxay ku kala dhamaanayaan mugdi iyo iftiin. tusaale ahaan oo kale waxaa ku yimid laba qof. mid waxa uu ku leeyahay waana la dulmiyey, waana la xasuuqay, dowladnimadayadii waanu dayacnay, Soomaalilandna ma helin abaalkii ay lahayd. midna waxa uu leeyahay waan ogahay dhibta, xasuuqa iyo dulmiga soo gaadhay dowladeenna, laakiinse waxaan meesha ka marnayn khaladaad waaweyn oo masiiri ah oo Somaliland iyo shacabka Somaliland iyo siyaasiyiinta Somaliland ay ku talaabsadeen. waxaanan u kacayaa sidii aan u sixi lahaa qaladaadka masiiriga ah ee dadkaygii kala dambeeyay ay ku kaceen. si guud labada qof ee labada ra'yi kala qaba labadooduba way saxayeen, laakiin marka laga hadlayo falsafada iyo political psychology-ga waxa loo yaqaano, labadoodu waxay ka soo kala jeedaan ama ay ku kala arooraan laba maskaxood oo aad iyo aad u kala gedisan. mid waxay ku tusinaysaa qof had iyo jeer dulmana ah, qof had iyo jeer cabanaya, qof had iyo jeer caalamka kale ka sugaya in loo garaabo isaga oo fadhiya afka wax lagu guro. ka kalena isaga oo og sida loo dulmiyey, sidoo caalamku naxariis darrada ugu jiro, ayuu haddana wuxuu og yahay wixii aanu gacantiisa ku soo dhacsanin cid deeq ugu keenaysa iyo cid fadhi ugu keenaysa inaanu jirin. sidoo kale wuxuu og yahay maalinba maalinta ka dambaysa caalamku inuu xagga maslaxadda u sii guurayo oo naxariista ay kasii dhammaanayso. aan tusaale kale soo qaadano, aan isku dayno mar kale inaan ku cabirno psychologiyada siyaasadeed bal hogaanka Ciro waqtiga ictiraafka, jidka ictiraafka. aynu soo qaadano laba qof oo kale. ka koobaade waxaa ka muuqda diif, waxaa ka muuqata culays, hadalku wuxuu ka soo baxayaa si googoosa. waxaad arkaysaa haddii la saro jidhkiisa malaha meelaha qaar dhiig kama imaadeen. Soomaalidu waxay tiraahdaa war dhafoor buu ku yaalaa. mid waa kaas. ka kale ee ka soo horjeeda waa mid culayska adduunyo inta uu leegyahay ama badankiisu isugu yimi, haddana habbi ah, hadalkiisu degan yahay, go'aan inficaaliya aan qaadanin, kasii darane farxaddiisa, qosolkiisa iyo cadhadiisa aan la kala garan. labadaa qof waxay kala qaadaan laba jid oo loo yaqaano psychological tacticska. marka laga hadlayo siyaasadda, laba jid oo aad u kala duwan. ka dambe aynu soo qaadanne waa qof aan la fahmin go'aamada u qarsoon. waxaa ka muuqda humaag, waxaa lagu dhiban yahay sidii loo fahmi lahaa xaaladdu ku jiro. lama qiimayn karo go'aanka xilligu qaadanayo, lama ogaa. waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah tacticska ugu adag ee marin habaabinta. waa ruux waqti badan lagu bixiyo sidii loo fahmi lahaa dabeecaddiisa. shisheeye iska daaye waxa ku wareera dadka iyo daa'irada ugu dhow ayaa ku wareerta inay falanqeeyaan ama ay fahmaan go'aamadiisa midba midku ka dambeeyo. dadka noocaas oo kale ah waxaa lagu tilmaamaa dadka go'aamada ay qaataan kuwa ugu kalsoonida badan leh. caalamkana waxay kaga jiraan heerka koobaad go'aan qaadashada, waayo khibradda ay ka dhaxleen muddada badan waxay tusinaysaa hadduu xataa keligii noqonayo in go'aamada qaar uu ku dhiiran karo. tacticskaasi waa
tacticska ka yaabiyey mid ka mid ah sirdoonka caalamka lagu tilmaamo kuwa ugu awooda badan leh. su-aashii xagga hore aynu ku soo sheegnay, caalamka oo dhan waxaa loo diray waraaqo, xataa uu ka mid yahay xasanka muqdisho jooga. ujeeddada ugu weyn ee laga lahaa maxay ahayd? si aan loo odhan waraaq baa meel hebel iyo meel heblaayo loo diray, soo waraaqda waxaad ka hadlaysaan maaha, war anigaba way soo gaadhay, wax macnolay ku fadhidaa ma jirto. waxayna keentay guusha diblomaasiyadeed inay isku si u qiraan saaxiibadiisa ka agdhow iyo mucaaridkiisa ka soo horjeeda. halkaa waxaynu ku soo hadlaynaynaa qaybtii labaad oo ku saabsanayd humaaga iyo falsafadda istiraatiijiyadeed ee loo raacay ama Ciro u raacay ictiraafka Somaliland dhowaantani ay heshay. sidaa iyo kulan dambe oo xiiso leh. Salaamu calaykum.